kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada sheekadii la magac baxday sixir iyo saxariir jecel qaybteedii 7aad oo aad ka dhageysataan raadiyaha Simbe magaalada Muqdisho. wow jabintan magaaladii qurxoon xikaaga taalaahay beledkii oo dhan waxay iska tahay shit كاس كبحاي والله الحمد لله لكن حافظ وحاب سودك تحبط الشيطان ما شاء الله يا مركز أركتد أيضا نو اسمه والله خيام كنا مركز عليك دون لوجو صعنا أنا ما بيزج علاني لا حبدان سويكوها لا طلو سويكوها لا حبدان والله بالله هور أكعه هذا مجال إن هذا بس كقاعسة بسم الله بص يبورني كعسة وريتي وباكن إنا لله وإنا إليه راجعون تربية الساجبة واو صابو محاواي غاريغي مانتا نينكي لا دحاي ابوحو دحاي غبدان قاد نينكي إلا الان كامي إيمانين وهكاسا عيد لعق لا دباتداس leedahay anigana hadaan gaari wado aan aqoon lahaa suura inta leega bidi gaari wado aqoon laanaaba mar hore maxeeto gaarigay ka xeesa lahaa laakiin wiilkan halkan duruufna waa ka muuqataa laakiin waa iska shidan yahay meeshan darbiga maxaa fariisitalo laakiin waa ina caawiya waxa laga yaabaa in problem uu haysto waaw gabadhan maxaa ku dhacay talo ma sha Allah walla wahurul ayn ma sha Allah aadi unuurisay ilaahu quruxdaana waligay ma arkin ii dhimantahay quruxday استاهل joog ya ilaahay amarkiis badana ma sha Allah maxay tahay laakiin aad buu iigu mashquulay shaqulkan waxa Soomaalida lagu yaqaan laakiin waxa laga yaabaa inuu isleeyahay niyada uu ka leeyahay gabadhan ha ku caawiso sidaas darteed inuu isoo fiirinay laakiin waa inaan ku leexdaa hay walaal sidee tahay maxay tahay naftuurkii waxa sheegayso ka hadlayso ana ma ilaahay shaabay bismillah allah adaa kula hadlaya maxay tahay naxtinta iyo والله مملين إن إله اللي سدواي قروح ذادان آد ولا عجبسنا ما شاء الله أبايو آد أقرع بضنتا وما سنتهاي لكن ويلكا وويل آد وناكسن رهانتي وإنا عاوية وحوال بقول مانتا وطبنا يني وإنا لكن أبا كليا إسلها الله يو ما تقولنا أنه حاليا يا بناسات كليا إسلها اللي سد أوه آد الدنا أذيقو سان أقرع بضن سعود لولك عتالو وقومة القلن ما يولالو وحا آد ولا يا بنا يعني qaabka iyo sida ay soo fiirinayso iyo hadan waxaan isdhaahday qofkan waa qof dhibaataysan markaan ku imaadana sidaad u naxdaaba ka yaabo Soomaha aniga walaac igu daartaba maya aniga waxaan la walaacayo aan hadalka afkii ugu soo bixi waayay afkii jooq gaba u noqdayba wuxuu ahaa markaan adiga ku arkay quruxdaadaan la yaabay quruxdaada aan la yaabo waan dhaqaaqo waa aniga dhan pressure-ki wadnaha istaagay gaar markaad ilaaliso بسم الله قفكان واي أنا عاوي أصلا أسينا براشي بلا يودنو كهذلا إن أوكي ولا هذا مو عاوية هذيك محاكا عاوية محاطة بنيسا وجيجا وحو إلى إجها قف واحد بناي أو واحد تبيو واحد بدن واتويا واحد بدن وانتويا وأنا أباهنا هاي هذا نصبي كالجعل نوشي لقيب سليت sidii waxaan noqon lahay nafqura oo laba jilo intaad ila hadashay kaliya igu filan balse xaafadda miyaa degan tahay fadha ani xaafadan deganahay laakiin intaan xaafad iyo arimaas aan ka hadlo waxa diyaar waay waan kuugu soo leexday inaan ku caawiyo adiga waa gabar aad u shidan hadana qalbi qurxoon ya dabeecaddeeduna intaan hadda ka dheehan karaba oo kuwa aad u wanaagsan abay waa maasan tahay waan kaaga mahadcelinayaa intaas uun kaliya igu filan intaad ila hadashay wax walba igu filan waan kaaga mahadcelinaa oo hadda maanta waxa kaliya aan u baahanahay kaliya waxay tahay intaad ila hadashay un kaliya waayo dhowr jeer baan ku arkay adoo xaafadan socda dhowr jeer waxaan isku day inaan kula hadlo balse waqtigii waayaha ii suurtagelin waay laakiin waa maasanta waan ka qabaa waxba hadda uma baahni barasho wanaagsan oo kaliya barasho lamida walaalo oo ku soo dhaweynaya sidoo kale runtii waxaan kuugu soo leeyahay waxay tahay bil aadinimo iyo naxariis yani runtii hadda maanta wiil yani dhigaado kala meel taagan hadii aan arko waxaan jeclahay inaan caawiyo oo wax walba uu tabanayna aan inta ka xog wareysto aan dana caawiyo si walaalnimo iyo wanaag ay ku jirto marka barasho wanaagsan ani xaafadana deganahay magaca adiga aniga magacayga aniga ha adiga magaca aniga magacayga baa waxa la yiraahdaa
fu'aad. waaw fu'aad barasho wanaagsan anigana waxaa la yidhaha ansal waaw waa magacaad u wanaagsan. magacaan hooyada macaana iila baxday barasho wanaagsan ansal ayaa la yiraahdaa xaafadaananu kula deganahay. maasha allah barasho wanaagsan abaay kulli waan iska warahayn doonaa oo dad iska warahayeen waan noqon doonaa. maantana waan kaaga mahadcelinahay intaad ila soo istaagtay oo aad ila sheekaysatay inkastoo munaasib aysan ahayn oo anigana aan ku dhahin fadhiiso balse waan kaaga mahadcelinahay abaay. maya dhib ma lahan insha allah waxaa waa ina wiilka lambar aan ka qaadaa maxaa yeelay yani wuxuu u egyahay qof dhibana ah haddana dhibkiisa qarsanayo marka waa inaan lambarka intaan ka qortaa aan xog wareystaa si fiican aan u wareystaa. okay walaalo email ama lambar aan ka heli karo oo aan hadhowtay kaasoo aan kala soo xiriiro yani haddaa wax u baahatana aad adigana sidoo kale igala soo xiriirto ma ka heli karaa. ogeysiis deegaan voluntary hospital waxa uu ogeysiinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda in isbitaalka si toos ah haatan ay kaga howlgalayaan dhaqaatiirtii bulshada ay wada sugayeen. sidoo kale isbitaalka waxaa lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo tayo leh. isbitaalka dhaqaatiirta ka howlgalaysa waxaa ka mid ah dhakhtarka cudurrada guud oo ka daweynaya dhiigkarka, sokorta, wadna xanuunka, gaaska, kaliya xanuunka, gargaar degdeg ah 24 saac. sidoo kale isbitaalka waxaa ka howlgalaya dhakhtarka cudurrada cunaha, dhagaha, sanka iyo maqaarka. sidoo kale isbitaalka waxa uu daaweynaya dadka waaweyn ee isku kaadshay sidoo kale caruurta. isbitaalka qalabka casriga ee uu adeegsanayo waxaa ka mid ah kombiyuutarada urkujirta oo lagaga baarayo kaliya xanuunka, kaadihaysta, dhagaxaanta gala kaliyaha, beerka, xameetida, mindhiciro xanuunka, burobiyoodka, minka qalloocma, ugxaanta oo qaldoonta, cudurrada sababa dhiciska sixidda bilaha ka qaldama hooyooyinka urka leh, ekfishinka ku dhaca kaliyaha iyo kaadimareenka, dhalmo la'aanta ee baa dhalmahayee. sidoo kale isbitaalka qalabka casriga uu adeegsanayo waxaa ka mid ah qalabka lagu baaro kolestaroolka, qalabka lagu baaro hepatitis A-ga, hepatitis B, hepatitis C, daaweynta dhiciska bilaha hore iyo bilaha dambe. tiimka ku qabanaya howshan waxa hogaaminaya Tutor Cabdullaahi Deegaan. fiire gaar ah daawooyinka iyo sheebaarka iyo kombiyuutarka dhamaantood waa lacag la'aan. goosashada lambarka dhakhtarka kaliya marka laga reebo. isbitaalka sidoo kale waxaa lagaga daweynayaa xasaasiyadda gudaha iyo xasaasiyadda banaanka. Deegaan Voluntary Hospital waxa uu ku yaalaa xaafadda Gubta Ciise Cabdi agagaarka Ifka Xalan. wixii faahfaahin kala xiriir telefoon lambar ibrle xal 5 42 21 91 amaba ibrle xal 7 ibr 7 44 ugu dambeyn ibrle xal 6 66 68 92 hore u gaar isbitaalka bulshadu ay ku diirsadeen Deegaan Voluntary Hospital. number bay weydiisay waa arin cajiib ah. ha waa heli karaa number waan leeyahay ciwaanna waan leeyahay waa heli karaa ha number Soomahan ciwaan waa leeyahay numberkayga waa kana abaay. okay waa ever u dambayso. okay waaya walaalo sidaas isku ognaay laakiin macnaha cudur adiga gargariir ma qabtaa macnaha cudur marmarka ugu soo kacay marka hadlays maxaa dhahay maya bay waxba igu dhicin laakiin marbaan wada neefsanayn marbaan wada nuuxsanayn marbaan wada noogilayn farxadun kaliya le macnaha waa shig badan tahay miya sidaasan u dareemay maya baayo saad moodid ma ahan gariirka iyo hadalka igu dhagayna waxa iga keenayo un kaliya waa dareemi kartaa haddaa qof wax dareemaya aad tahay kolay dhibaato ma lahan barasho wanaagsan anzalay kolay waan iska warahaynaynaa wicitaankaaga ama koolkaagana waan sugi doonaa baayo. okay insha allah waaya barasho wanaagsan okay saasa isku ognaa fu'aado waan sii dhaqaaqayaa insha allah baayo. أنا يا شيء كبرها بقرح بدن العقل ها إلى رب الرحمن والسيدة جعشها هي ها الحمد لله بسم الله ويلكي فؤاد حتى صودا في رنتي ويلكاس ويل دبنبو إلى إكا سيدا موقتا لكن آد بو إيغا حشوني لكن هذا إيميل إلانبري وحبان كسو قرتي waa inaa si fiican aan u xog wareystaa haddana dharka uu wato iyo qaabka stresskii yacni sida uu yahay runtii waa qof yacni duruufka muuqata haddana u baahan nolol wanaagsan iyo aayatiin wanaagsan maadaama anigu aan nahay yacni dad haddana wax haysto oo ilaahay wax siiye
ani maanta waxaan jeclaa qof walba oo dhib haysta inaan caawiyo marka wiil iyo gabar ha noqdo hadda dadka saaxiibadii hadday arkaan anigu wiilkan la taagan runtii waxay leeyihiin dee ansaley waxaa tahay qof yacni hanti leh oo dad maxeetoo hanti leh ka dhalatay maxay taa dadka la taagan tahay laakiin ani waxaas uma qabanayo maxaa yeele waxaan jeclaa qof walba oo dhibanay inaan caawiyo wiilkaana waa inaan si fiican aan u wareystaa waxaa ku dhahay haddii dharkaas laga bedelo qaabkiisa stresskiisa aniga quruxdiisii maasha allah way cajibgeliyeen laakiin uma maleynayo yacni inuu yahay qof maanta wax haysto laakiin inaan caawiyo waan diyaar waa inaan hadda sii dhaqaaqaa la hadal iyo wuxuu igeliyba ani dhama stress waa inaan hadda dhaqaaqaa marka maanta inaan baxawa yaa aniga guriga gabartayda hadayna ila joogin cidla oo ileeyahay yaa gabartina ayaantan ma fiicno waxbaa u qarsoon jeceelay gashaan u maleeha haddaan dhahayne hooyaad jeceshahay qofkaad jeceshahay ii sheeg hadda waxaysan xataa qarashka anaa bixi lahay yaa ilaan gabadhaydaa jecel moogtahay gabadhayda qofkay jeceshaana inaan jeclaadan ku qasbanahay wax jeceela la yiraha ma jira ilaada hooyo saa ila hadlaysaa anima nin islaameed jeclaahayo mase asaa jeclaahayo ay igu jawaab هيا مديكر حكم ما كديكر ورياننا جعش الشيخ عنجرو الجراعة ميا قفين ومسؤوله جامعة دقته أقول له يا ما توحن رادية وذا قرآن صاروا الرادية قبلت مفعنا وبيقع عنبو يا وحبرشة نفتر كذا على سكعنا وذا قرآن صاروا إن الرادية والله يا باي هستو هدي إن الرقاجيوه أو رادية شيق بكر لدي جري أو ماركتي معلنك ويناي إن الله مالنت جمعها قضاء يعاني نوعين الانديار واي أذيك إيه اللي خفض تضوء أذي أقطعي مالنت جمعها حافظ وسور قلة قبل قرآن إيساري إن الله واي الله حال ملايكتين مال إسلاسي حتى أملاي شيخ بكر السلام عليكم وعليكم السلام warkaaga cadee warkii wacdi sata warona waxaan rabay gabadhii ayga xanuunsan gabadha cunto ma cunayso fikir ay ku jirtaa hadaan guriga u galo qof boog akhrisaysa iska dhigaysa raashinku way ka gooday jaamacadda ma aado gabartay jaamacadda ma laga soo faniinay adiga sheeg oo ma la sixray yaa dhibaatada haysato waa ka yaabanay marka horta wax kasta waxa ka weyn quraanka ilaahay runta way gabadha ilaahay gorme lahay gabarta isbuucan oo dhanba ma fiicna dhimalahan aniga ku imaanaya jimcada insha Allah waxaan soo wadanayaa lix wadaadan soo way la fahantay marka qadmadiina iyo maaragtay qadada maalintaas agteeda waa okay dhimalahan saasan kaaraba gabadhu way iga xanuunsan tahay maya quraan isaartiin aniga dhan muruga iska kayso jidka ana maray qof wala camal iska daldalmaya maxaa dhacay waa gabadha kaligeed adduunka aan ka fiirsahay maya walwalin insha Allah jimcada anaga ka tumayna wixii haaya marka niyada qeyr u sheeg isdaji kullayba tufta ilaahina waa lagu daawoobayaa quraanka ma sha Allah dhowr jeer aan ruu soo quraan saarnay dad badan marka ka walwalay arintaas insha Allah ana ku maayan insha Allah kullay maalintaas aad sugaa dawlad raali ka noqdo insha Allah adiya wallahi ma mada ayar jirta wallahi quraanka xataa waligeena cadayna ma dhaafina ku dhaasay kula ilmi quraan saar gabar quraan saar kula saaxiibada oo soo waca kala kaan yaa soo waca saaxiibada marka kullay briiskaas hiribkaas ay dareem moogta aniga iyo qisas jirta hadii ay kullay maamada horta waa mid wax dhiiba mu akeene laakiin ilaahay inuu soo qaadaya moogta aniga kullay muddo asbuuc wax ma cunine marka كل هذا وأصله جونا كل تنقد يلا في رسمه ما صار نأول سقران برد وسلقين أو حتى مع صلاة حتى مرقار وجنبيه وحلا هذا القرآن صار إن أمر كرد ما ربطه كل وذات كسوة وذات بارية ما ركتي إلهي ما رتحوا عافمات كوسيو نوا الهلايا يا وحوا أنا الدياريو سدح ضب بقول ما ركتي وصي لباطن صدن سيوكل جاريسو وذا غاركود العجية قانين مركوحي أون لو عافمات دب مكانا لعجن سيها قرآنها إيسارة قرآنك إلهي وحكفي عن ماله أسانك الددالايا نايا maxaa igu dhacaysaa ii sheeg hadal yaa mase oo xataa qof baxsan yaa waxaa taagan tahay jecel
markaan abuurnay ubaxa baxaya yaa ogeysiiya alla yaa u sheega ismoog aqalkii bay aslaysaa ismana oga unsigii bay shidaysaa naaya hay maxaa islaanta anima ila hadlaysaa hooyo maxaa kugu dhacay al-irshaad herbal medicine dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho nawaaxigeeda waxaa la ogeysiinayaa in la furay xarunta al-irshaad herbal medicine oo ka howlgalo Dr. Cabdiraxmaan Dr. ayaa ku takhasusay cudurrada kala ah dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka Allah ubadka baxshe infectionka ragga iyo dumarka baawasiirka oo hab casri ah lagaga daweynayo caado wareerka umulsabiyaanka dhabar xanuunka xoojinta raganimada kor u qaadida ugxaanta dumarka xaruntan waxaa sidoo kale aad ka helaysaa saliidda timaha dheereysa saabuunta baabi'isa finanka wejiga iyo kareemo soo celiya bilicda wejiga xarunta al-irshaad herbal medicine waxay ku taalaa inta u dhaxaysa isgoyska Bakaaraha iyo wadada Bangaariya waxayna ku dhagan tahay Somali Sports wixii faahfaahin kale xiriir ebil 4 38 67 37 ama ebil 6 67 89 ebil 8 96 ebil 2 oo darbaxadan kugu dhifta xataa kuma kartamiya inta kuma qantaay sheeg maxaa igu qeynaysaa iga rabtaa in waxaas dhaha maama maxaa dardaray maxaa garabka igu dhifee bisinka anima ku dardarayne hee ma ogid cuud bilaa maama ana wax ma ku dhibin maxaa laakiin ana wax dhahay telefoon ku hadlay camal oo ku daba maray ma ogid miya ya waxaan dhexda ugu soo xiratay ya inaad dadka islaameed dardarto ya ee nimanana ku yaqiinina shaqo kugu leen inaad dariiqaas ku barato ee nin kastaba aad ina fiirso ishu jabiso ani adoo kala waa aqaana bismillaahir rahmaanir rahiim sidoo qof yaqaan camal ina soo aaday hawr maxaa ninkii waxa sheegaysa ay taani ma kugu dhicin waxa sheegaysa ma ogiye wallahi door fiican iska dhiga oo baari aan waa ku aqaana adoo kala waa aqaana ani ha gabdhaha masaakiinta gabdhaha duur ka bixiya taadi bismillaahir rahmaanir rahiim maamadan maanta yaa ii soo diray cuud billah maaha iga cuud bilaysan maxay iga cuud bilaysan shaydaan ma mid laakiin la hadda inta u socotaadi inta u jeeda saacada inta u socota gurniga u socdaa gurigiina ma saacadan waalidka kuma canaanaan miya saacada ta ka timid lagu dhihi maamiya may waalidka anu ogyihiin meesha soo aaday goor saaxiibta arooska soo aaday waan la ogyahay qof waalidkiis amar la'aan ku socda ma jira jaceelkaaga u soo baxda miya wallahi maamada meel kale keesa jacayl iyo afaaraha la edisan baan ila soo gashay hal mar dhageysa hawr yar ani jacayl waxa sheegaysid mana kugu dhicin waxa sheegaysid ma aqaan inta dhaga ma u jeedin miya hadda waa kugu dhacay raalli ahaawde hadda idin indhaga hortooda wax ku arkay horta bal qaabka kugu dhacay ba isifaba anu waa ku daba maray waxaas lahaa hees iyo waxa qaad waxaan dhahay maamadan waa qof la hadlay camal oo ku daba maray be waa fiicanta ee wadadan maalin kale hadaan kugu arko tii kugu dhacdaada isku keentay wadadan toos mar dadkana in u yeelaa dardarin dadka islaameed bismillaahir rahmaanir rahiim wili hooyadii xataa iguma qaylin igu qayliso igu dhaaratay waaya hawr waaya tan is dilin baan ka carab bisinka hay soo wajigaada iga qari billahi hawr maanta jawiga waa ii degan yahay maasha Allah intaan waa xaaladeeda waa iska fiican tahay inaan baxaan rabaa oo meel yar oo meeshan ciyaalka xaafadda asxaabta inaan aado waa inaan sii baxaa hadda marka laakiin halkaas yaa taagan yaab waaye qofka meeshaas taagan gabar ay u eg tahay gabar aad u qurux badan meeshaas taagan gabar marmar arki jiray laakiin ma bala hadlaba badanaaba maanta laakiin inaan la hadlaa horta qoftaan maanta waa inaan la hadlaa dhowr maalin iska hormaanay ayadoo isoo fiirinaysa ana ag maray ani wax walba kibirkii iyo isla weynida ay dhaafinayso isla weynida in aska dhaaf waa iyo kibirka qoftaan meel badan oo ku arkin jaamacadda miya adiga kulli xaafad horta bisla deganaa qoftaan dhowr mar arkin because anyway horta maanta waa inaan la hadlaa waxa ka tahay in ay taa umareena yarta hello yaa hadana saacadan wax meesha igala hadlaayo yaa qofka meesha aan dad ma ka filaneen meelahan waxa waaye waa dad iska soo qaldamay ma ogtahay qof yaqaan iska dhigayaan halo iska soo leeyeen qajaanas ma waay xamaas kii gudbaale xasku hadlaysa isku booqsantaa yarta mi maqshaa ha walaal adimiya waxa ila hadlaay maanta dhan waxa islaha yaa kugu soo qaldamay oo halo diyaaraysa iya bisinka adimaayad iyo waran walaal seetay waa cunug ma sha Allah waa fiicanahay caadi isku kiiso dhiso saxawa laakiin waa qofka ii wacaya waa iyo waxa sheekada keent inaani adile meesha taagana wadada u jeedaayo jidku maanta hadda cilayahay xilli duurna ay tahay ana waxa waaye wada dagsanay moqtay xoogaa barnaamijyo waxba ay u furunaa rabaa inaan soo xalxaliyo marka aan waqtigaas badan oo kula sii sheekaystamaan haynin marka bal ii waran xaaladaada ka sheekay walaal sheeko ma jirtay horta isfiican isku mana qaanaba kulli xaafadda horta nasad deganna u maleena wajigaada migu cusbo haniya xaafadda isla deganahay waxa waaye daris qaybaas dambe oo idinka dambeeyaan nahay ad waxa maleena meelaha dhow inaad degantahay inta dhawaad degan ani luuqaas deganahay laakiin adiga waxa ku weydiinaa xaafadda degantahay kulli dhowr
dhowr marna waa ku arkay ha ana turkeyga waa ku arkay marar badan aan ku arkay adoo dhalinyaro la jira adoo jaamacad oo halkaas ku taalna ku arkay marka jaamacad isbaan dhigtay ha jaamacada dhigta marka koranka arkay si fiican kuma aqoon fiican kuma li marka xaafadana xoogaa dhinacaas kala degnayna marar badan aan ku arkay dhalinyaro iyo wax la jira marka saas ma ku maartay ku fiirfiirin ma fahanto marka dib ma lahan darisanahay ma isnaqan laakiin hadda isbarnayna dib ma lahan magacaada ii sheeg bal saara li dhaha saaro waaba qof carab iska dhigaysa saara li dhaha inuu laakiin ama qoftan been isoo saabal saaradan bugle ama idhiibo saale laakiin horta xoogaa way qurxan tahay hadii qurxanta xataa saara si ula baxay saara carabta wala bixi jireen inuu qoftan been idhiibo saa umaleeyaa marka la ku celin aba maxaa kugu dhacay maxaa isku leedahay dib ma lahan maya magaca xoogaa saara magaca xoogaa wax ila noqdo wax kale magacaaga nanaasta ma mise magacaaga waa maya magaci oo rasmiga ah waa familka ay baxsadeen oo ay abi baxsadeen waay adi marka Sacuudiga la kana umalana carab la yaray cumana ka imaaday cumaan akweydiina ogeysiis waxaa dhammaan la ogeysiinaya dadweynaha ku nool magaalada muqdisho nawaaxigeeda in safar shaqo kadib magaalada dib ugu soo laabtay Sheekh Muniir oo xarun cusub ka furay kana shaqo bilaabi doona insha Allah xarunta cusub ee Shiiqa waxay wax ku daweynaysaa quraanka kariimka sunnaha nabiga dabadhireed casri ah Allah ayaa dawada haye xarunta Sheekh Muniir xanuunada ay daweynayso waxa kamid ah isha jinka sixirka xasadka shakiga umlisabiyaanka baawasiirka infectionka hurdalaanta walwalkii walbahaarka waswaaska himada ragga iyo dumarka iyo samboorka Sheekh Muniir wuxuu ka soo shaqeeyay magaalooyinka Boosaaso Hargeysa Garowe Cadaada Kismaayo iyo Muqdisho oo haatan xarun cusub ka furay sheekha wuxuu muddo dheer la soo shaqeeyay Sheekh Cabdul Xaq xarumihiisa Boosaaso iyo Hargeysa Sheekh Muniir waxa uu xarun cusub ka furay magaalada Muqdisho wuxuuna ka guuray xaruntiisa hore xarunta cusub ayaa ku taala isgoyska warshadaha gaar ahaan xirgulwada agaarkeeda wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir eberli xal 3 33 63 45 eberli xal 3 33 63 46 ama eberli xal 3 33 63 47 hadaba hore u gaara xarunta Sheekh Muniir cumaan joogtid ma Soomaali wax barasho soo doonad macna jaamacadii Soomaali ma u soo aad xagga xawli weys mise wax kala umad ma kooda markii hore arimo kala xoogaa ina xali u umaaday marka haddana waxaan sida intii waqtiga ama si joogtid waxaan sida jaamacada iska sii dhigo iska bar hadhow marka xalaga yaabaa in xaq ku dhameysto iska baxaa laga yaabaa marnii qof saan walaahi billahi qof abdeedo agtaaya saara li dhaawla ya balarku walaahi billahi saara laakiin waa ajiibe anyway laakiin magacii mi weydiiyaan u sheegay ayada idin xagarta waa gartay marka had jaamacada ma xagee maraysaa adiga waa isla hadlo samaanto dhan qof stress iyo problem ku furan yahay amal ma problem ma jiro xoogaa magaalada iska mashquul baanta oo ogtahay jaam badan jiro ma wax dhib oo haysto ma jiraan jaamka maxaa tahay akhi ana wadi ila taaganta jaamka waxa ka hadlaysaa mashquul iyo xoogaa wax barashada ogtahay culays iska noqotay imtixaan xataa noo socdo jaamacada oo ogtahay imtixaanka waa qaybaha ka galoosa marka jaam iska jireen lima imtixaanka guud anaga dhan wasla galeyna waa ogaa jaamacadina imtixaanka jiro okay barasho wanaagsan dhib malahan kulay hadda waa isbaran doonaa hay magaca waaye ma sheegaysnaa magacaaga hataa bismillah waa cunug flop waa bakan oo magaciisa hataa ay sheegeen oo magaciisa sorry imu weydiin marka hore anyway magaciisa Farxaan Allah soo dhow barasho wanaagsan Farxaan barasho wanaagsan wajigaaga horta ugu yeelaniyo Farxaan kaasniyo waa maqlabe gabadhii oo filsan ahayd magaci shalay ii sheegayso aan idka wada hadalna buu ogaaba aniga hadana iyada buu ogaaba moogta gabadha waashiis baa umaleynaya fiir saaxiib waslaada saada xataa salaada hadii uu sheegayso isla hadalkii jaamka adu ku bilowday xataa waxaan soo xasuustay magacan shalay aan maqlay oo gabadha asxaabnahay oo jaamacada isla dhigan aan ka maqlay walaalkeed ahaa oo Farxaan la dhahayo oo gabar Felis aad u jeceshahay waa isnaqaanaa gabadha jaamacada isla dhigan gabar aad fiican waay wada xoogaan oo ogtaa muqtimaad dhan meesha ka fikirayay walaalana dhib malahan kulay waa isbaran doonaa si fiican isku wada baran doonaa insha Allah hada Felis walaalkeed tahay miya halaba wiilka ii sheegayso oo gabar baa Felis baa jecel ay ugu leeyahay Felis ka ismaxeed abo dhib malaha Felis ma garanaysaa ilaa horta maanta iga ka tusay Felis ma garanaysaa horta si fiican oo qaana waa gabdha jaamacada isla dhigana waa asxaabana waa isnaqaana walaahi gabadhaasna waxa gabar aad u dhibaataysan waayo maxaa ku dhacay jiran oo iska xanuunsan isbitaal ma talaad والله نيو اسبتال iyo ma aqaan had meel taala laakiin qofta aad u liidata ayaantan dhan
darays maxaa ku dhacay adaa ka warqabtidii aan ma arkin soo qaadaneen maanta sida aan ma maqlay hadartaan waxaa maqlay in gabadhaas ay dartaa ay xanuunsan tahay sirr ay u saaran tahay waaw aniga dadkay ha macquul maahan marka saas aan kulay maqlay ana oba la yaabana xanuunkeeda iyo wax ku dhaca garawaysan hadan gabadho laasha shalay aan sheekaysano ay sheegtay gabadhaas horta way jirtaa markii ugu dambeysay sheekaysanana waxay igu dhahday waa ku jeclahay waxaan waqti qaado soo fikir jecel iyo waxaas hadda uma joogno dad wax baranayaan bal jecel iyo hadda ku degdegina isdaji baan ku ir ma garad marka xoogaa ayada la isbarbaleyminaysa maahan barbalay meesha ma yaalo jecel iyo nolol wal sameeysan karaa iyo xiriir no matter dib ma lahan laakiin cilad jirto waxay tahay xilliga la sameeyna hadda og tahay dadku markay wax barasho ku jiraan oo isku moodi karo qofka laba qalbi ma lahan barasho jecel isku moodi karo marka ayadu ay timid ku jecelahay dhaaday anigana xoogaa ma ka aqbalin hore kama qaadan waxaan ka soo fikir xoogaa degdeg badan jira marka maalinkaas ay ugu dambeysay ka bacdina ma arag jaamacadana aantan anaa iska mashquul jaamacada ma imaam ha horta niyo taas ugu gabadha waxa la gabadha dartaada waxaan xanuunsan tahay gabadha laasha ii sheegtay walaalkii jeceshahay ku tiri ana walaasha walaal daar mashallah waxaan ku dhahay gabadha saas maahan hala caawiyo adiga xataa garab siiyay gabadha tahay walaalka u sheeg duusi ogeyn xataa u sheeg ilaaba maanta ka tusay horta anaaba ku sheegay walaasha waxa ma isku sheegin saamaleenaye anaaba ku sheegay niyo gabadhaas gabadhaashan oo kala jaamacada nala dhigata marka biliis waxaan ka cabsanaynaa in gabadha mustaqbalka aad kaga ciyaarno qalbigina aad ka jibin wax la qabato gabadhaas wallahi horta qalbi jabis iyo waxa shay isma jiraan kulay waa ris jeclaada xiriir waa la sameeyaa waxba dhib ma lahan laakiin kali waxaan ku yiri waa degdegaysaa degdeg badan baa jira bal waqti qaado waxbarashan ku jirnaa bal isdaji baan ku yiri marka haddana dhib ma la kulay waa arki doonaa waa sheekaysan doonaa ayada ayaantaana ma aragay insha Allah haddana meel baan sii aadayaa waan yarada hasanahay khayr baan ku rajeynaa kulay waa ku faraxsanaa barashadaada soo dhaw haye walaalkay aad ma santa anigana sidoo kale ku soo dhaweynaya barasho wanaagsan ani kulay hora kugu sheegay saara leedaha adna farxana lagu dhahaa okay barasho xaafadana isla deganahay mar kale ay kulan dambe insha Allah horseed watch and optical horseed way ugu dheertahay dhan kastaba gob weeyaan dhuux oo murtida maqal wax kastoo la dhooro dhibta laga ilaasho dhaayaheena weeyaan hadday dhaawacmaan oo arki weyda meel dheer horseed watch and optical dhaayahayda weysaa midka aragga dhimanee uu dhibaya socodkiyo hadduu xuub ku dhaga iyo hadduu hilib dhantaalaba halka lagu dhayaayo dhaqaatiirtu joogaan waa horseed watch and optical hadday maqalka dhagihiyo kuu dhacaynin sheekadu inaad isdhowrto dhaktar aad la aadaa dhoolay waa dantaada hala dhaadin meel kale iyo dhul shisheeya horseed kaale ila dhago haddii aad dhadhamadiyo cuni weyda dheefti ileen waa dhibkaaga ee qanjirada wixii dhibaa dhakafaar xal maahe dhaqsaa loo daweeyaa halka lagu dhayaayo dhakhaatiirtu joogaan waa horseed watch and optical dhaldhalaalka muuqiyo midabkaaga dheehale waxa soo dhaweeye kugu dhaliya quruxdani waa muraayadaha dhameyska dhaktarkeenna qoraya horseed watch and optical anoona hadal ku daalay nafta aan hungeynayn waxaan haybinayeen ku haraaday waayahan haddaan helay horseedoo ka bogsoonay hiifti xarunta horseed watch and optical waxaa kugu diyaara dhakhtarka daweynaya xanuunada ku dhaca indhaha cabirka biyaha indhaha dira iyo sixidda aragerida iyo dhakhtarka daweynaya cudurrada ku dhaca cunaha dhagaha sanka iyo buufinta dhagaha cabirka dhagaha maqalkoodu yar yahay sidoo kale waxaad ka helaysaa xarunta horseed watch and optical kombiyuutar casri ah loona adeegsado cabirka indhaha waxaa kale oo xarunta horseed watch kugu diyaaraa shaybaar casri ah qalabkiisuna dhammaystiran yahay farmashiye daawo tayaysan leh ookiyaalaha noocyada kala duwan saacadaha gacanta lagu xirto sameecadaha maqalka soo kordhiya saacadaha lagu cabiro sokorta saacadaha lagu cabiro dhiigkarka fiiro gaar ah maalin kasta oo talaadaha nambarka dhakhtarka waa lacag la'aan cabirka biyaha indhaha dira waa lacag la'aan halka loo hayaamee naftu haybi leedahay illa maayo aan helo hakin maayo socodkee halkee bay ku taallaa xarunta horseed watch and optical waxay ku taallaa bakaaraha agaarka masjidka Abu Hurayra waxayna ku dhagan tahay Salaam Somali Bank saacadaha shaqadu waa 7 aroornimo ilaa laga gaaro 3 galabnimo wixii faahfaahin kala xiriir eber la xalshan 94 42 eber 2 ama eber la xalsdeed 42 eber 722 intaa haynoo joogto dhegaystayaal qaybtii toddobaad ee sheekadii la magac baxday sixir iyo saxriir jecel isku dabaridka iyo haweenta sheekadu waa saaxiibkeena Saacid Maxamed Colaad online halka fikradda sheekadaas ay lahayd maama Asli Yuusuf Gacal intaan qaybteeda xigaan ku kulmi doono nabadgelyo Thank you.